fiirinayo afduubkii Xabsa Maxamed Luqmaan maanta maxaa ka cusbana dhanka iyo maxkamadda aad baad maasantay Nasro waa saa sheegtay maxkamadda maanta aad baa loo sugayay in ay go'aan ka soo saarto arrimaha ku saabsan labadii qof oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen falkii afduubka waa Xafsa Axmed iyo soo kale Jackson saan la socono labadan eedeysanay axadii ayaa la soo qabtay waxaana la geeyay saldhigga booliska ee Buruburu sida sharciga dalkan uu qoraya qofka markii la soo qabto eedeysana waa in 24 saac gudaheed waa in qofka maxkamadda la geeyo maadaama maalintii la soo qabtay maalin axadda waxa maxkamadda la geeyay shalay oo isniina marka waxaa la gudagalay in la dhageysto keeskooda waxaana soo kalena Xafsa Axmed oo eedeysana waxa matalay qareenkeeda oo la yiraahdo Dunston Omari qareenka ayaa maxkamadda uu sheegay in dhanka iyo gabadha ay wali ay wax dambi ay geysan ilaa iyo maxkamadda go'aan ay ka soo saarto ay tahay qof eedeysana dhanka kalena waxa sidoo kale keeska ku jiray waxda dambi baarista dalkani Kenya DCI-da oo la socon inay keeska gacanta ku haysay qolada dambi baarista dalkani Kenya waxay rabeen in maxkamadda ayaga ay u ogolaato muddo 14 cisho in la siiyo sifahay baaritaanka u dhameeyaan haweeneydii ka socota waxda dambi baarista oo keeska gacanta ku haysay Mary waxay shalay maxkamadda u sheegtay in ay jiraan dad kale oo lagu eedeynay keeska inay ku jiraan marka waxay dalbatay in la siiyo muddo 14 cisho laakiin qareenka matalo Xafsa Axmed oo eedeysana wuxuu maxkamadda u sheegay in 14 cisho ay tahay maalin aad u badan marka xitaa laba maalin ama xitaa hal maalin keeska lagu soo gabagabeyn karo marka shalay garsoore Haston oo wuxuu soo kale sheegay in maanta oo talaada in asagoo bixin doono dhanka iyo go'aanka ma damiina lagu dayn doonaa mise arintii ay dalbadeen waxda dambi baarista ayaa la siin doonaa oo muddo 14 cisho marka maanta arintaas ay aad loo sugayay in maxkamadda ay ku dhaqaaqdo tiin ma aysan dhicin marka arintana dib loo dhigay wahagaag maxaa sababay ayaan isdhigi karnaa Cabdinuur in maxkamadda maanta ay dib loo dhigo maadaama dadka inta badan ay sugayeen in go'aan laga gaaro arintaasi wixii cadeymo ku soo baxa labadaas eedeysanana xukunkooda ay maraan waa saa sheegtay waa arin aad iyo aad loo sugay runtii maanta oo talaada 8 saac ayaa la balansanaa 7 saacad markii ahayd anaga waan tagnay maxkamadda Makadara aad baan u sugaynay in aan ogaano wixii garsoorka uu ku dhawaaqi lahaa laba shay ayaa maanta maxkamadda laga filanayay in maxkamadda ay raacdo waxay ay rabto dowladda waxay rabtay in eedeysanaashan muddo 14 cisho xabsiga lagu sii hayo in baaritaanka uu socdo labo waxa maxkamadda laga filanayay in damiino lacageed lagu dayo waxa la cash bail lagu dayo marka labadu ma aysan dhicin waxayna u dhicin labaduba waxa meesha soo gashay dood ku salaysan waxa la isku qabsaday daada gabadha ayaa la isku haystay ninkii ka socday qaybta dowladda qaasaan xafiiska dacwad sugaha ee DPP ka socday wuxuu sheegay markii ayaga ay wareysteen gabadha qolada dambi baarista gabadha ay wareysteen Xafsa Axmed oo eedeysana markii la wareystay waxay dhahday aniga daadayda waa 16 waa sida maanta maxkamadda loo sheegay maadaama 16 ay tahay 16 sida sharciga dalkan Kenya uu qoraya qofkaasi wali ma qangaarin oo dastuurku wuxuu qorayaa qofka markuu gaar maxkamadda la saari karin maxkamadda la saari laakiin maxkamadda waxa jirta loo targay daadooda ay ka hooseyso 16 waxa la yiraahdo juvenile court marka waxa la isweydiiyay marka maadaama ay sheegtay in 16 ay ka hooseyso qofka 18 markuu gaaro ayaa wuxuu qaataa sharciga kadib ayaa maxkamadda dadka weyn la geeyaa marka waxa la isweydiiyay marka 16 ma jirta ha dhanka kalena waxa socday warar sheegay in gabadha ay jirta 21 sano ama 22 sano marka qareenkii joogay maxkamadda oo matalaya Xafsa Axmed ayaa judge kama garsoorku wuxuu weydiiyay in la weydiiyo Xafsa daadeeda waa la weydiiyay Xafsa daadeeda markii la weydiiyay waxay sheegtay inay daadeeda ay tahay 22 sano 21 years marka meesha dooda ay ka jirta waa 16 iyo 21 years la isku haysta waxa soo kale meesha soo gashay Xafsa Axmed oo eedeysana waxay dhahday aniga ma haysto kibaandaha ama aqoonsiga ID card ma haysto marka labada shay maadaama ay soo galeen meesha ID cardka iyo arinta daada iyo arinta kala soo gashay waxay ahayd shalay maxkamadda waxa qareenka matala Xafsa Axmed oo eedeysana wuxuu maxkamadda u sheegay maalintii axadda oo Xafsa la soo qabtay in ciidamada booliska oo gabadha soo qabtay inay jirdil u geysteen waa sida qareenka ku doodaya laba waxay leeyihiin qof haweena iyada ma soo qabanin qof kale oo rag ayaa iyada soo qabtay marka waxay leeyihiin dhanka iyo privacygeeda madax banaanideeda iyo inay xuquuq u hesho in qof dumar iyada ay qabato si nidaamsan la geeyo saldhigga arrimahaasi ma marin ayuu leeyahay qareenka sidoo ku doodaya marka ugu dambeyntii calay taxal garsooraha wuxuu sheegay maadaama labadaas arrimood ay soo baxeen arinta daada
iyo arinta ku aadan in iyada jirdil ama dhibaato loo geystay kow iyo dhanka sharciga wuxuu amray in dhanka iyo maalinta jimcaha labadoodba la soo celiyo waxaa lagu soo celinaya maxkamadda markii la soo celiyo inta laga gaarayo taariikh 2 oo jimcada ku beegan waxa uu garsooraha sheegay in la soo baaro la ogaado da'da rasmiga ee Xafsa Axmed oo eedeysana waayo 16 16 iyo waxa la isku haystay 22 iyo in la ogaado inay sharci haysato in kala koos qofka haduu sharci haysan wadankan waxa qofku u haysta warqada dhalashada ee leedahay birth certificate marka iyada maadaama ay sheegtay inaysan haysan ID cardka waxa maxkamadda ay amartay in la soo baaro la ogaado inay haysato warqada dhalashada birth certificate iyo in la ogaado da'deeda rasmiga mid labaad ee la soo ogaan doono waxay tahay in loo yeero ninka saldhiga uu xisaarna burubur waayo waa meesha la geeyay burubur police station in asagan loo yeero la weydiyo gabadhan markaad soo qabanayseen ma jirdil aad u geysteen qaabkaad ku soo qabateen ayaa arimaasi laga soo waari doonaa waxaana lagu wadaa la balansan yahay maalinta jimcaha waa hagaag jimcaha ayaa la sugayaa wixii ka soo baxa misna go'aanka ay ka gaaraan maxkamadda labada eedeysana Cabdinuur ma la sii daayay misna dhanka iyo racfaan miya lagu sii daayay misna wali xabsiga ayay ku sii nagaadayaan ilaa jimcaha laga gaarayo wallahi sida sharcigu u dhigaya maadaama wali case ku socdo waxay ku sii jiri doonaan xabsiga ilaa jimcaha la gaaray markii jimcaha la gaaro ayuu garsooraha go'aan gaari doonaa markii waxyaabihii dhan la soo keeno cadeymihii asaga u dalbaday in loo keeno u dhageystay ayuu go'aan gaari doonaa waqtigaasi jimcaha laakiin markii aan ka soo tagnay maxkamadda waa la waday saldhiga booliska la geeyay waayo hadii la fasaxo koos baaritaan socdo baaritaanada ay si saameynaysa marka say noo sheegtana haweeneydii ka socoto waxda dambaarisa dad kale ayaa jira oo la raadinaya oo case ku jiro marka waxa laga cabsanaya hadii la fasaxo in dhibaato ay keenayso in baaritaanada ay saameeyaan marka ilaa haatan xabsiga ku jiraan waxaan la filayaa in maalinta jimcaha maxkamadda ayaga la keeno waa hagaag su'aasha ugu dambaysa Cabdinuur adigoo mahadsan qoyska Xafsa Maxamed Luqmaan oo ahayd gabadhii la afduubtay kadibna hadda ay doonayaan cadaalad ma ayaga qaabka ay maxkamadda u socoto ma ku qanacsan yihiin maadaama ay yihiin dad cadaalad doon ah waa saa sheegtay shalay iyo maanta ayaga way joogeen qoyska maantana waan ku arkay maxkamadda waxayna iyaga aad ugu qanacsan yihiin qaabka hawshu socoto waxayna sugayaan inay cadaalad helaan waayo qofka marka uu dhiban yahay ama qofkiisa markii dib loo geysto meesha lagu kala baxaa waa maxkamadda ayaa lagu kala baxaa marka waxay sheegeen markaan weydiiyey inkastoo ay kamerada ay la hadlin waxay sheegeen inay sugayaan waxyaabaha ka soo bixi doona dhanka maxkamadda iyo in gabadhooda cadaalad ay hesho marka aad bay u sugayaan aad bayna dhagaha u taagayaan ayay kaliya dad badan ayaa dhagaha taagaya waayo nasro arintan afduubka dad badan ay sidoo kale cabsi gelisay markaan sii fiirno dad badan oo Soomaaliyeed oo xitaa magaalada Nairobi aan joogin balse gabdhahooda ay joogaan Nairobi ayaa aad iyo aad ugu walwalsan arrimahan ku aadan afduubka marka wadankan arinta aad bay u soo badatay marka aad baa loo sugaya go'aanka ka soo bixi doona dhanka maxkamadda marka sida sharcigu dhigayna dadkan waa eedeysane ilaa iyo cadeyn laga helo waa in ayagana xaq ay u leeyihiin inay noqdaan dad eedeysana garsooraha ayaan ka warsugi doonaa in arintan go'aan uu ku gaaro wixii ay mudan yihiin ma la xiri doonaa baaritaanka sii socon doonaa miya miswaas arrimahaas dhan maalinta jimcaha duulahan gaarsiin taariikh 2 ayaan ogaan doonaa maxkamadda ayaa go'aan ka gaari doonta si fiican waa hagaag aad u mahadsan tahay Cabdinuur waana kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan aad igala falanqaysay arrimaha maxkamadda ku aadan afduubkii Xafsa Maxamed Luqmaan loo geystay aad u mahadsan tahay